maanta waxaan si qoto dheer uga hadlaynaa muhiimadda ay leedahay inaan laga hadlin wax aan cilmi loo lahayn iyo sidoo kale halista sharciga ee ka dhalan karta qoraallada online-ka qaarkood ee aan xaqiiqda ku dhisnayn. Waa mowduuc muhiim ah oo saameeya bulshadeenna maalin kasta. Internetka iyo baraha bulshada ayaa si weyn noo fududeeyey inaan si degdeg ah ula wadaagno macluumaadka kala duwan, laakiin sidoo kale waxay keeneen caqabado cusub oo la xiriira xaqiiqada iyo mas'uuliyadda. Fursadaha ay bixiyaan waa kuwa aan la soo koobi karin, laakiin waxaa la socda mas'uuliyad weyn. Waa muhiim inaan si qoto dheer u fahanno in hadalka aan aqoonta u lahayn ama aan xaqiiqda ku dhisnayn uu sababi karo dhibaatooyin waaweyn oo bulsho, gaar ahaan marka uu si xawli ah ugu faafo online-ka. Saamaynta ay yeelan karto waa mid ballaaran oo aan la filayn. Qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu fikradiisa cabiro si xor ah, laakiin waa inaan xusuusnaano in xorriyadda hadalka aysan ahayn mid aan xad lahayn. Waxaa jira xuduudo iyo mas'uuliyado la socda xorriyaddaas. Waxaa jira sharciyo adag oo ilaaliya sharafta iyo sumcadda dadka, kuwaas oo si cad uga hortegaya faafinta been abuurka, aflagaadada iyo wax kasta oo wax u dhimaya shakhsiyadda qofka. Sharcigu wuxuu u taagan yahay ilaalinta xuquuqda qof kasta. Had iyo jeer ka fikir si qoto dheer intaadan wax qorin ama la wadaagin online-ka, gaar ahaan haddii aadan hubin saxnaanta macluumaadka. Hal mar oo aad si degdeg ah wax ula wadaagto waxay keeni kartaa cawaaqib aan wanaagsanayn. Faafinta wararka aan la hubin waxay abuuri kartaa jahwareer baahsan, kala qaybsanaan bulshada dhexdeeda ah, iyo xitaa rabshado aan loo baahnayn. Saamaynta ay yeelan karto waa mid aad u daran oo burburin karta isku xirnaanta bulshada. Tusaale ahaan, warar been abuur ah oo ku saabsan caafimaadka dadweynaha ama siyaasadda dalka waxay yeelan karaan cawaaqib xun oo aan la filayn oo saameeya nolosha dad badan. Waa inaan ka digtoonaano arrimahan. Waa mas'uuliyad saaran qof kasta oo isticmaala baraha bulshada inuu hubiyo xaqiiqada iyo saxnaanta macluumaadka ka hor inta uusan wax faafin. Mas'uuliyaddan waa mid aan laga leexan karin. Haddii aad aragto qoraal ama macluumaad shaki gelinaya, ha ku degdegin inaad la wadaagto dadka kale. Qaado waqti aad ku xaqiijiso runta ka hor intaadan tallaabo qaadin. Ka fiirso ilaha macluumaadka aad ka heshay, ma yihiin kuwa lagu kalsoonaan karo oo xaqiiqda ku salaysan. Ma jiraan caddaymo taageeraya sheegashada la soo bandhigay. Hubi in macluumaadkaagu yahay mid sax ah. Waa inaan ogaanaa in qoraallada online-ka qaarkood ay noqon karaan dembi culus, sida faafinta nacaybka, aflagaadada shakhsiyaadka, ama hanjabaadaha tooska ah. Kuwani waa falal sharcigu ciqaabayo. Sharciga dalku wuxuu si cad u qeexayaa waxa loo arko dembi online-ka ah, waxaana ka mid ah cayda, dacayada aan saldhigga lahayn, iyo faafinta macluumaad been abuur ah oo waxyeelo leh. Waa inaan si fiican u fahanaa shuruucdan. Cawaaqibta sharciga ah ee ka dhalan karta qoraallada noocaan ah waxay noqon kartaa ganaaxyo lacageed oo waaweyn, xabsi ama labadaba. Waa inaan ka digtoonaano cawaaqibtaas culus. Sidaa darteed, waa inaan si taxaddar leh oo mas'uuliyad leh u isticmaalnaa baraha bulshada iyo goobaha kale ee online-ka ah. Fikir kasta oo aan qorno wuxuu leeyahay saamayn. Xusuusnow, waxa aad online-ka ku qorto wuxuu sii jiri karaa muddo dheer, waxaana laga yaabaa inuu saamayn ku yeesho mustaqbalkaaga shakhsi ahaaneed iyo mid xirfadeedba. Raadadka digitaalka ah waa kuwa aan tirtirmin. Waa inaan si wada jir ah u dhisnaa bulsho online ah oo ku dhisan ixtiraam, xaqiiqo iyo mas'uuliyad wadareed. Tani waa mas'uuliyad saaran qof kasta oo naga mid ah. Ka qayb qaado wada hadal wax dhisaya oo ka fogow faafinta waxyaabaha waxyeelada leh ee burburin kara bulshada. Aan noqono qayb ka mid ah xalka, maaha dhibaatada. Waxaan sidoo kale u baahanahay inaan baranno carruurteenna iyo jiilalka soo koraya muhiimadda ay leedahay mas'uuliyadda online-ka iyo sida loo isticmaalo internetka si ammaan ah. Waxbarashadu waa furaha. Waxbarashada iyo wacyigelinta joogtada ah ayaa ah furaha aan kaga hortagi karno dhibaatooyinka ka dhasha isticmaalka aan habboonayn ee internetka. Waa inaan si joogto ah u wacyigelinaa bulshadeenna. Aan wada shaqayno si aan u abuurno jawi online ah oo ammaan ah, waxtar leh, oo faa'iido u leh qof walba. Midnimada iyo iskaashigu waa muhiim. Xusuusnow, hadalkaagu wuxuu leeyahay awood weyn. Isticmaal si xikmad leh oo mas'uuliyad leh. Erayadaadu waxay dhisi karaan ama burburin karaan. Haddii aad aragto waxyaabo sharci darro ah ama waxyeelo leh online-ka, ha ka labalabayn inaad ka warbixiso mas'uuliyiinta ku shaqada leh. Waa mas'uuliyad wadareed inaan ilaalino jawiga online-ka.
hay-adaha sharciga iyo maamulayaasha baraha bulshada ayaa jira si ay uga hortagaan dhibaatooyinka noocaan ah, waxaana muhiim ah inaan la shaqayno iyaga. Waxay u taagan yihiin ilaalinta bulshada. Aan noqonno dad mas'uul ah oo ka taxadara waxa aan online-ka ku qorno iyo waxa aan la wadaagno. Fikir kasta oo aan qorno wuxuu leeyahay saamayn. Waa inaan ka fogaanaa faafinta xanta been abuurka iyo wax kasta oo wax u dhimaya sharafta iyo karaamada dadka kale. Ixtiraamka waa asaaska wada noolaanshaha. Fadlan ka qayb qaado dhismaha bulsho online ah oo wanaagsan oo ku dhisan runta, ixtiraamka iyo mas'uuliyadda. Tani waa yoolkeena wadajirka ah. Mahadsanidin dhammaantiin oo xusuusnow in hadalkaagu uu leeyahay culays iyo qiimo aan la qiyaasi karin. Isticmaal si wanaagsan.